dablay ku labisan dharka dhakhaatiirta ayaa weeraray isbitaalka ugu weyn ee militariga dalka Afghanistan. Gudaha isbitaalka waxaa ka dhacay dagaal aad u xoog badan sida uu sheegay wasiirka difaaca dalkaasi. Ugu yaraan 30 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen, balse waxaa suuragal ah in tirada dhimashadu intaa ka badato. Ciidamada commandoska Afghanistan ayaa diyaarad lagaga dajiyay gudaha garoonka si ay u galaan isbitaalka isla markaana ay la dagaalamaan mintidiinta soo weeraray. Ururka la magac baxay Khilaafada Islaamka ee Daesh ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani waxa uu sheegay in weerarkan lagu qaaday isbitaalka uu yahay mid halis gelinaya nolosha. Weerarkan waxa uu ku bilowday qof isku qarxiyay albaabka dhanka koonfureed ee isbitaalka safaaradda Mareykanka kadib 3 kalena ayaa gudaha u galay isbitaalka. Mid ka mid ah shaqaalaha isbitaalka oo la hadlay wariyaasha markii uu goobta ka soo baxsaday ayaa waxa uu sheegay inuu arkayay nin ku labisan dharka dhakhaatiirta oo gacanta ku haysta qori AK-47 oo dhinac kasta rasaas u ridaya, waxaana uu arkayay in rasaasaasi ku tuurayay ilaalada shaqaalaha iyo waliba bukaanka dhakhaatiirta intaba. Sida uu sheegay afayeen u hadlay wasaaradda difaaca ayaa sheegay in mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday la toogtay halka 2 kalena isku qarxiyeen gudaha isbitaalka. Dhanka kale hal askari ayaa looga dilay weerarkaasi sida ay sheegtay afayeen u hadlay wasaaradda difaaca dalkaasi. Ugu yaraan 60 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen. Shaqaalaha isbitaalka ayaa u badan dadka ku dhaawacmay isbitaalkani ku yaala Afghanistan ee la sheegay in la weeraray.